oo loo dhaho waa ku jeclahay. Shanta qaybood ama shanta siyaabood waxay u qaybiyeen. Midda koowaad, inaad lamaanahaaga afka uga sheegto oo aad afka uga tiraahdo inaad jeceshahay. Midda labaad, waxay ku sifeeyeen inaad lamaanahaaga aad waqti tayo leh isa siisaan, ama guriga inta fadhiisataan oo si fiican wada heshaan oo mobaylka la wada damiyo, ama maqaayad inta tagtaan oo cuntaysaan ayadoo mobaylkii wixii oo dhan dansan yahay. Sidoo kale midda saddexaad, waxay ku sifeeyeen isweydaarsiga hadiyadda, inaad hadiyad is siisaan. Midda afaraad, oo waa ku jeclahay loo dhihi karo qofka, ayagana waxay ku sifeeyeen isla cayaarista ama raaxada. Midda shanaadna waxay ku sifeeyeen howlaha guriga oo laysla wada qabto, ama howsha guriga oo si tayo leh loo qabto. Markii aan fiirsana shantaas siyaabood aan hadda soo sheegnay, nabigeena allahuma salli wasallam caleyh wuu dhaqangeliyey. Waxay ka mid ahayd akhlaaqdiisa iyo macaamiishiisa uu la macaamiloon jiray xaasaskiisa. Anagana waxaana la gudboon inaan shantaas siyaabood ee loo dhaho waa ku jeclahay oo aan barano, taasna ay noqoto macaamiisheena habka aan ula macaamiloono xaasaskeena ama lamaanaheena. Sidoo kale dadka culummada cilmi nafsiga guurka ayaa waxay sheegeen lamaano walba mid uu aad u doorbidaa shantaas siyaabood oo hadda soo sheegnay. lamaano waxaa jiro oo aad u jecel in afka loogu sheego jaceylka uu qabto. Sida waxaa jirtay haweeney ninkeeda ku tiri, maxaa ii caddaynaya inaa i jeceshahay? ninkii intuu xoogaa yara fakeray ayuu wuxuu dhahay, 25 sana isqabnay, hadduu ilaahay 25kaas sano dib igu celiyo uu idhaho mar labaad haddana gabar dooro, adigu un baan ku dooran lahaa uu dhahay. haweeneydii intay faraxday waxay tiri, anigana sidoo kale haddii dib la celin lahaa adigu un baan ku dooran lahaa. waxaa kaloo jira maalan lamaana doorbida in howsha guriga lala kaalmeeyo ama lala qabto, gaar ahaan runtii lamaanaha ku nool qurba oo maadaama ay jirin khadaamad guriga u adeegto, sida maalan dadka qurbaha reer galbeed ku nool, markii howsha guriga lala qabto ama aad ay u qadariyaan. sidoo kale ragga waxaa jiro rag aad u jecel inuu guriga ahaado guri nadiif ah, macnaa taas ayagana waxay u arkayaan inay xaaskoodii aad u jeceshahay. marka waxaa roon inaa ogaato qodobka uu aad lamaanahaaga u jecel yahay, taasna inaa aad u isticmaasho, macnaa gurigaas uu noqdo guri nabad leh. waxaan kusoo gabagabeynaynaa jaceylka ugu fiican waa jaceylka ilaahay dartiisa u jeclaato. maxaa yeelay ilaahay wuu jirayaa waana joogayaa. haddii aa ilaahay dartii u jeclaatana jaceylkaaga waa jirayaa waana joogayaa. ogow quluubta aadanaha ilaahay gacantiisa ayay ku jirtaa. haddii aa ilaahay dartiis u jeclaato, ilaahay qalbiga lamaanahaaga aduu kuu soo dubayaa hadduu ilaah yiraahdo. waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen. waa barnaamijkii horumar ummadaada oo idin soo gudbiyey baasi xaaji busuri. waxaa kaloo isku soo dibiraday walaalkeen axmed amiin xasan. walaalayaal, barnaamijkan waa barnaamij taxane ah. waxaan jecelnahay inaan si toosa kugu soo dirno. sidaas darteed fadlan isdiiwaangeli oo subscriber ka noqo channelkan. sidoo kale u gudbi saaxiibadaada si ay ugu faa'iidaystaan oo guryaha soomaaliyeed uu noqdo guryo kalgacayl iyo jacayl jiro, oo ay kasoo baxayaan jiil waxtar leh insha allahu tacaala, oo waddanka horumarinaya hadduu ilaahay yiraahdo. mahadsanidin. khayr ayaa idin dhaafay. jazaakum allahu khayran.